دول قبر حكمته وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم gabadhaasi wax kastoo boqortooyo u baahnayd waa la siiyey kursi weyn oo sariir boqortooyana waa haysatay oo hadduu soo arkay dawlad meel ka dhisan maxaa ku jaban waa kan waxa ku jaban wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lishams waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceedda caabuda ilaahay sokadii oo shaytaan uu jidkii alle ka weeciyey oo lunsan baa soo helay buu leeyahay إيمانا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين وراق أنت سكو قرطي برقاب وراق دي باللوغة قصة محانو كتشيدا النتيجة وامحي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين نتيجة وامحي هدهد أي وحو الصبابي إن أي بغرطي يدني إسلام طائي تلاهده إني ظلمت نفسي إلهي ونفتي دواد ذلمي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هدهد كشقاد وقبتي وامحي وحقرتي إساقا إيا قولدان إن أنا يصفقرنا إن حتى هدو التوحيد كوشيق لها دن محا حلقة وحا حلقة وحدوني دا كوغي هاي عدا يصفقرنا إياه ويا يصفقرنا إياه قرآن كواكة الماما إياه إنه نبي سليمان لها يا أيها الناس علمنا منطق الطير نبي سليمان خطبتي سي waxa kamid ahayd dada waxa nala baray af shimbiraadka nabi Suleymaan af shimbiraadku yaqaan hudhudku markaasi wuxuu gartay inuu isagu risaalo xambaari karo ah warkan intuu qaado cid shaqadan qaban karta inuu gaarsiiyo isagana af garanaysa qoladana af garanaysa tawxiidkana sharxi karaysa qof muslimaan shaqada qaban karin ma jira hatta haddaanad af garanaynin dadka daacad noqon kartaa dadka diinta waad gaarsiin kartaa maadaama shimbiriba uu ku guuleystay inuu bulsho dhan islaamiyo waxaan leenahay ikhwati fi al-aqeeda waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan meesha culuma joogto oo wadaada jooga oo hebel iyo hebel baa jooga dad diinta sheegaya jooga war waxa mas'uuliyadu kuma dhacdo waayo quraanku wuxuu ka warramayaa magaalo saddex rasuul diiday saddex rasuul magaalo diiday oo haddana niman saddexda rasuul ba ahayn uu diin sheegayo wadrib lahum mathalan asxaab alqarya id jaaha almursaluun dadka waxaad u sheegtaa baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala tusaale uga dhigtaa magaaladii saddexda rasuul ay u yimaadeen id arsalnaa ilayhim ithnayn فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إلهي وحكى ورمى سبحانه وتعالى مقال الرسول الله دري مركاسي بينسي مركاسامت كلا الله دري مركاسي بينسي مركاسامت صدحات الله دري هدات سوق شو مقال صدح رسول ديدي محد سمعين لهي رسول شريعة من النبي كلا صدر منذرين هذا سام مفسرين تقارقبان أما رسول الله بها هذا حق الرب كاتبين magaalo saddex caalim oo ka waaweyn ay joogan oo saddexdaba la diiday ama saddex rasuul oo ilaahay soo diray joogto oo waxba laga dhageysan waayo hadaad joogto adigu maxaad yeeli lahayd halka yaabana istiraahada shaqadii rasuul shaba laga diiday adiga maxaa ku yaala laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimka isudiye wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran وهم مهتدون ابن هبيرة وزير كله رجل عالم كهذا وحليه قصة ياب كذا وحكم يدبولي إن كان مركي ألا سفيني لقوا ما سفين إن علم لا ما وحبل لقوا مشيجين وحلقوا شيء قرا محي وجاء رجل إنه يمي حقيقة يمي وجاء من أقصى المدينة رجل كو حلت المامي مو هينين حاضروا مالهن علماء عمر رسوش اللي قد دي شوقي مقالة الدعل كيدو شوقي أقصى المدينة بكيمة وحكرا القرآن كنت الماما يسعى وركو مركي وسوق قاعدين رسوشي للديدي أيو مقالة الدعل كيدا كيمي ولي بيسيقوا أرديا للي الرورية ورباشا قضا إنو نخصاو قبطه مركو يمين محو سمي يا قوم اتبعوا المرسلين بولي جنب الرسل بوك هذا يوحلي يا قوم اتبعوا المرسلين وارتلك يو رسول الله الراعة
waayo laba sababood ba ku raaca buu leeyahay ittabi'u man la yasalukum ajran raaca midaan ajar idin weydiisanayn ajarku waa maxay waa midaan magac maamuus lacag siyaasad waxba kaa doonaynin qofka bini aadamka ah hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma aqbalo waayo waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akhrinayaa wax kaloo ku qoran oo ayna danahaaga adigu dee wadato in adigu business kuugu jiro ayuu dareemaya laakiin qur-aanku markuu rususha ka warramayo fi suurati shucaraa nebi kasta sloganiskay ambiyadu sideen ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru baa ka mid ah ilaahay keligii in la caabudo maxaa kaloo nebi kasta la lahaa ku dhe dadka qul laa asalukum wax ajara idinma weydiisanaya ku dhe baa la lahaa rususha waxaa la leeyahay hadda waa rasuulkii ilaahay soo diray dadka waxaad u caddaysaan maa asalukum calayhi min ajr xoola idinkama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxaa raacdaan cid aan dan idinka lahayn inay diinta ilaahay idin gaarsiiso mooyaane marka labaadna maxay ah wahum muhtaduun iyagu hanuunsan qur-aanku wuxuu inooga warramayaa laba rasuul haddaynu kuwii hore xataa culamaba tafsiirka a qaadanno qur-aanku wuxuu ka warramayaa laba rasuul oo tolkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyey oo haddana la beeniyey oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeyahay war rususha ha la raaco ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima nebi muuse iyo nebiyullaahi haaruun reer banu israa'iil baa loo soo diray reer banu israa'iil dulli iyo addoonsi bay ka soo saareen ilaahay subxaana wa tacaala bad buu u kala jeexay fircawn iyo kooxdii baa la halaagay laakiin waa halku ka bilaabmay jihaadku awal umma jihaad la faraa qoomkan bay ahaayeen waxaa lagu yidhi soo ma arkaysaan in ilaahay intaa soo halaagay haa idinka haddaba waxa idin saaran inaad jihaatantaan oo baytulmaqdis gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan udkhuluu alarda almuqadasati alatii kataba allahu lakum dhulka alla idiin qoray baa la yidhi gala waxay yidhahdeen inagu geli mayna haddii ay ka baxaan baanu gelaynaa markii lagu adkeeyena waxay yidhaahdeen adiga iyo rabbigaa dagaalama adiga iyo rabbigaa nebi muuse u dagaalama ina haahunaa qaaciduun annagu halkaanu sii fadhiyaynaaye fircoon baa ilaahay adaa u bariyo gacantaadaa lagu burburiyey qoladanna adiga iyo rabbigaa isku daya buu yidhi annagu waa sii joogaynaa laba rasuul baa la diiday markaasoo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifaynayaa laba nin oo kale oo aan rasul ahayn oo waa maxay qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima qaala rajulaan wax sifo oo kale lama socoto mujarad rajulaan baa lagu sifeeyey laakiin maxaa la raaciyey min aladiina yakhaafuun ancama allahu calayhima laba nin oo kuwa alle ka cabsanaya ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ku nicmaystay geysnimo iyo raganimo iyo kaladayg ayaa waxay ku yidhaahdeen udkhuluu calayhim albaab faidaa dakhaltumuuhu fainakum ghaalibuun wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin waar albaabka uga gala isku tuura madax madax u gala haddaa saa samaysaan ilaan dhulka ilaahay baa idiin qoray oo qur-aanka laydinku sheegaya qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alardi alatii kataba allah kadibna waan kuugu daraynaa waxaa lagu yidhi gala qisadoo dhan waxaan uga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniye ka dhinac hadlaya waxaan ku soo koobayaa dariska dhammaantii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam goormaa rasuul laga dhigay markiise rasuul laga dhigay imisuu xambaarsanaa iqra bismi rabbika aladii khalaq waa maxay waa nebinimadii rasuulnimadana culimmadu waxay idhahdaan yaa ayuha almudathiru qum faandir kac oo dig baa la yidhi kan isduuduubayo qum faandir markii la yidhi cilmi intee leeg baa ku soo degay yani waxaynu odhan karnaa waxoogaagu ru'yada ku arkay iyo labada aayadood ee qur-aana baa la tilmaamay waxaan ku soo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaadhsiin karin ma jiro laakiin waxaa lagaa rabaa waxaad garanaysa inaad gaadhsiiso nebigu wuxuu yidhi balliquu cannii
ولا وايا بلغوا ما شئتم لما أوران بلغوا عني وكيل النبي عليه الصلاة والسلام أنا جوحي أن كاني دتك يجا جارسية لكن وحاو كاني دتك اللي جارسين يا وام ما كتب أخربا هل آياتنا هالنقطة فاتحة هذا وتطبع آياته متكملة فاتحة أنا هالنقطة دتك جارسي بالليل إذن waxaan ku soo koobaya dariska kani dantan kale iyo dhami waa hal mas'alo ah war ma dareena mas'uuliyadda inay diintan mas'uuliyadda inaga saarantahay oo inaga saarantahay inaynu hiil iyo hooba siino oo inaga saarantahay inaynu faafino oo nafteena iyo gurigeena iyo qaraabadeena iyo dadka inoo dhow iyo basharka intiisa kale baynaynu gaarsiino waxay diintu hadda ku soo gaadhay saxaabadii nabiga iyo taabiciintii baa iska xil saartay oo faafisay imikana waxa muslimo dhan loo gumaystay u socon weyday inaga isku koobnayo waxba waynu sheegi weynay waxaynu awoodi kari weynay inaynu basharka aynu la noolay siiba kuwiina kan gaalada dhex degani hadda cudurdar bay akhriidii noqonaysa gaalka lagu dhex joogi karo haddii aad diinta sheegtaan dacwadu waxay ka mid tahay waxyaabaha baneeya in gaalka la dhex joogi karo haddii kale aakhiro joogistiina xataa ina cudurdar weydaa ma ka baqaya waa mas'uuliyadiini waa cudurdaarkiini waa dantiini waa qaab loo cibaadaysto qaabka ugu fiican waayo qofka diinta soo gala wuxuu amal sameeyo dhan in leeg baa Ilaahay adigana ku qoraya hadaad midhuun islaamka ku darsato midkaasi wuxuu cibaadaysto oo dhan marka isaga loo qoro adna in leeg baa miisaanka lagu qoraya war hadaad adigu 10 salaadood ma tukan kartid laakiin hadaad 10 ku darsato maalin kasta 10 baa tukanaysaa hadaad rabto marka inaad jarkaagu bato وهذا آخر بدباده والنبي محمد صفير رسمي كان نغطه إلهي دينتي سهل الله فافيه صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ugu horeyn waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo albaabada Ilaahay waa fur qof waliba oo muslimi horta ayuu ka daalin inuu Ilaahay baryo Ilaahay baa ballan qaaday inuu ka aqbalayo bal sheegay inuu ka xishoonayo adoonkiisu inuu gacmaha soo taago alla ka aqbali waayo uu ka aqbalaya idan kalsooni isku beera markaana sama dhibta ka cabanaysa in Ilaahay dhibta ka qaado xanuunadana ka qaado islaamnimada iyo diintooda ku sugo inagana islaamnimada iyo diinta in Alla ina fahamsiiyo inuu sugo kuwii xambaare ummadda inta kala gaarsiinay inaga dhigo sallallahu alayhi nabi Muhammad wa ala